madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland Axmed Maxamed Silaayo oo socdaal ku yimid magaalada London ayaa maanta marti noogu ah Bush House studio markaan ku marti qaadnay kadib ayuu madaxweynuhu halkan noogu yimid madaxweyne ku soo dhaw barnaamijka waxaan jeclahay inaan ku weydiiyo muddo dheer ayaad jabhad soo ahayd jabhadda SNM taayad madax u ahayd kadib dawladda Somaliland baad marka qayb gashay laakiin inta badan mucaarad ayaad ahayd mucaaradkaas muddo dheer kadib aad dawladda adigu hadda madax u noqotay oo sanadkan lagu doortay marka hore waan kugu hambaleynayaa doorashadaada marka labaad waxaan jeclaa bal inaad noo sheegto dareenkaagu siduu hadda yahay bal in badan dhinac mucaaradkaad ka riixaysay hadda markaad steerinka u qabatay maxaad dareemaysaa dareenkaygu waxa weeye xilkiiyo mas-uuliyadda saaran baan ogahay waxaanu ugu jiray oo halkan dheer usoo galnay ama ha noqoto intii dalku halkan ku jiray ama ha noqoto intii siyaasadda lagu jiray mar walba inaanu dhisno dal iyo dad horumara oo ay ka jirto xasilooni iyo deganaansho oo arligooda ka jiro oo baycamisinooda ka jirto oo horumar dhaqaale iyo horumar siyaasadeed iyo mid tacriimeed ay ka jirto waynu ognahay mantaqadaanu ku noolahay waxaanu ka warqabnay inay tahay mantaqad ay xasilooni deganaansho aad iyo aad ugu yar tahay aad baanu markaa uxusuusanna ognahay annagoo jeclin mantaqadoo dhamme ay xasilooni deganaansho iyo dimuqraadiyaduba ka hirgalaan laakiin kulliba horta contribution ugu horreeyaanu samayn karna waxa weeye inaanu ka aanu ku noolahaanu joogno inaanu hananno xasiloonida deganaashiisa iyo dimuqraadiyadiisa aanu xoojinno marka insha allah ilaa waxaanu ka barnay inuu taana la qabto gobolka lagu nool yahay oo dhanna uu kusoo dabaalo deganaansha iyo xasilada uu dalka iyo gobolku dadku u baahan yahay maxaad is leedahay dawladda adigu aad madaxda u tahay xisbigaaga kulmiya uu madaxda ka noqday waa tan hadda dardar cusub la soo gashay isbedello fara badan samaynaysa maxaad is leedahay dadka reer Somaliland noloshooda qofka hargeysa degan ama degan Boorama ama Burco noloshiisa maxaa iska bedeli doona ayaad is leedahay 2 sano kadib waxa aanu rajaynaynaa oo iska bedeli horta markuu warisi waxa weeye dee in dadku yuhuntiisa iyo nadiisa dee ay wanaagsanaadaan oo ay arkaan oo qiimeeyaan dalkooda oo arkaan dalkooda iyo dadkooda madaxu qabanayo inuu yahay cidda wax qabashada laga rabaana dawladda qoramay waa shacbiga laftiisa wax qabashada laga rabaa marka in ummadda kalsooni lagu abuuro cadaalad bay ummaddu u baahantay inay hesho hubiso inay cadaalad hesho inay hesho waxyaabihii xilka dawladdu qaadi lahaa waxaa ka mid ah dee wadooyin waxaa ka mid ah muxuu ahay maamul wanaagsan waxaa ka mid ah muxuu ahay waxbarasho waxaa ka mid ah tababar shaqaalaha iyo dadka dhalinyarada iyo dadka iskuullada ka baxaya la tababar ayaa ka mid ah waxaa ka mid ah nabadgelyadoo la ilaasho oo dadka quddiisa xilkii mas-uuliyadda wax laga siiya ayaa ka mid ah marka wixii ummad ku noqon lahayd oo dhan inay yaro dawladdu daacadka oo corruptionka la dagaalamaysa oo xumaanta la dagaalamaysa ay ugu horkacda dalka ayaanu jeclahay berigii hore ee Soomaaliya aad wasiirka ahayd waan ogaa laakiin hoos kaagama warqabin noloshaada sidaad u shaqayso ragad wada shaqayn jirteen berigaas oo ama golaha dawladda ku jiray ama baananka joogay ama meel kale joogay waxay ii sheegeen inaad ku tilmaanayd inaad ragga corruptionka ka soo horjeeda ama musuqmaasuqa xagga lacagta xatooda hantida qaranka inaad ka mid ahayd hadda Somaliland systemku aad uma cusla waa dawlad cusub waxa dhan waa iska curdun marka si loo fiiriyo maxaad is leedahay oo ku soo biirin kartaa xagga dhaqaalaha horta marka ugu horeysa corruptionku ama tuugadu ama boobku wuxuu ka mid yahay waxyaabaha marka ugu horeysa dalka dee hantidiisa iyo yuhuntiisa iyo himilada ay ummadda dadku eegsanayaan ka duwan jidkeeda iyo dariiqeeda uu ka mid yahay wuxuu ku ridaa niyaddu ka jabiyaa dadku oo dhabbu niyad jabiyaa inta xun baana ummadda soo hormarta marka waxaanu hubinay waxaanu samaynay hay-addan oo leeyahay anti corruption xafiiska corruptionka la dagaalama ayaanu samaynay oo aanu furay oo hubinayna in aanu noqdo shaqaalaha iyaga iyo dawladdeedu mid ka nadiifa waxa mid siday u dhiirigelin karto dadka iyo kuwa dibadda naga imanaya doonaya dalka maalgashadana intaba ay marka corruptionka haddii la hor istaago dhaqaalihii waa hagaagay ugu yaraan dakhligii baa kordhaya maxaad soo kordhinaysaa macno badan buu kordhinaya dee dakhligu quraa kordhaya maaha dakhligu kuma kordho corruptionka qura joogsana maaha wax soo saar buu ku kordhaa marka anagu dakhligaygu waa kordhinay waayo tuugadii baa yaraatay shaqadii baa muxuu dadka xilka loo saaray baa muxuu dad mas-uuliyaddeeda xilkoodii shaqaynaya saacadaha waqtigii ku qorayd ee la shaqaynaya baanu badinay intii hore ka badinay maaha saacadii baanu kordhinay maaha saacadaha la shaqaynaya waxaa dhowr saacadood baa walba intii hore la shaqaynayay imika waxaan ogaynay in muddo badan la fadhiyo meeshii
oo waqtiga sharcigu ku qorayo dadku shaqadoodii hawshooda ay ku jiraan marka waxyaabahaas oo dhan baanu doonaynaa inaanu dhiirigelin haddii laga dhigo dawlad waliba markay cusub tahay dardar cusub ayay la soo gashaa ma dardartaasaa mise waa wax socon doona insha allah waxaanu rajaynaynaa aanu ku niyadsanay inay socon doonto weliba ay ka heli doonto dhiiranaan iyo maxaa ku kordhin doonto dadka iyo niyadday u dhisto shaqaalaha dawladdaada hadda xustay shaqaalaha dawladda waxaa la leeyahay oo aan siyaasad ku jirin ee shaqaale dawladeed ahaa civil servants ahaa dawladdaadu waxay shaqada uga ereysaa ama ku bedelaysaa xilalka uga qaadaysaa dadka ay ku tuhunsan tahay inay xisbigii awal talada hayn jiray udube hadda mucaaradka ah ay taageersanaayeen arrinta maxaad ka leedahay dawladda aan madaxda ka wax u dhalatay dalkoo dhan bay u dhalatay dadkoo dhan bay u dhalatay waanu dhahnaa aad iyo aad baan maartay dad badan oo aan taageerin xisbiga kulmiye ayaa ku jira dawladda oo ka mid ah oo hadda ila socda oo xisaab kale ka tirsanaa oo shaqada dawladda ku jira dadka xuquuqdooda sharciga uu siinayay ka civil servant ka shaqaalahan aad iyo aad baan u ilaalinaa laakiin meeluhu habboonaa in la bedelo waa la bedeli maase inta la wada mariyey laga bedelay meeshii laga kaxeeyey cidka loo dhibay taasi wax weyn baa muxuu ahay ku dardara ka jirta arrintaasi ma jirto cid walbana cid kasta aadana shaqaalihii xuquuqda ay lahaayeen waa la ilaalinaya si buuxda sharcigu uu siinaya loo ilaalinaya ethoobiyaad soo martay london hadda markaad imanaysay ethoopia waxaad is aragteen ra-iisul wasaaraha waxaad is aragteen taliyaha ciidanka haddaan la khaldanayn waana dal darisna ah arrimo badanna idinka dhexeeyaan maxaa ugu weynaa xiriirkiina hadda aad ku tilmaami lahayd ee xaguu maraya xidhiirka naga dhexeeya etoobiya iyo saaragii aanu melesanaa way saragnay iyo dawladdiisuba aad iyo aad u heer sare u ahaa dhinac walbana waa ka wada hadalay waxaanuna isla soo wada qaadnay aan huba kuna kalsoonay inaan shaqayn wado wada shaqayn fara badan oo dhinac walba leh dhinaca ganacsiga leh dhinaca isticmaalka dekeda berbere leh oo muxuu ahay etoobiya waynu ognahay oo dee dad muxuu ahay waa waddanka geeska afrika ugu weyn waana dad 80 malyan iyo kor u dhaafay isticmaalkooda of course Djibouti ay dekada kale isticmaalaanba waa ka badan yahay iyo berbere intaba waa baahi markaa inay dekadayda berbere isticmaalaan in muxuu ahay wadooyinka haddii railwayin iyo haddii wax kale yihiinba la xoojiyo oo la dhiso oo dhinaca kalena aan wada shaqaynta haddii xagga nabadgelyada tahay iyo haddii xagga ganacsiga tahay iyo haddii isdhaafsiga dhinac walba yahay inaanu ka wada shaqaynayaanu ku heshiinay taageero badan iyo isfahan badanna waan isla gaarnay aad aan ugu kalsoonahay xagga nabadgelyada waxaa la leeyahay ciidan somaliland soo dhex marayay oo lagu eedeynayay in eritrea lagu soo tababaro ethoopia la dagaalami lahaa ayaa jira oo lagu tuhunsan yahay sida la sheegay saraakiil somaliland xataa inay laku lahaayeen arrintaa ma ka wada hadasheen mase jirtaa arrintaa horena waaga wada hadlay arrintaa aad baynu uga baad cesheen arrintaan waanu ka wada shaqaynay ciidamada somaliland shuqulkuma lahayn way jireen dad muxuu ahay dee khaldanaa somaliland ka mid ah oo farsamadii horena meeshu waxaa dariiq xalaq bareena oo hore bay wax u mari jireen markii ugu horreysay ma aha laakiin arrintaa annaga iyo xagga etoobiya waa ka wada shaqaynay meel wanaagsanna waa iska taagnay waana ka guulaysan xagga kale isla ammaanka waxaa maalmadooda warar ka soo baxay nairobi sheegayeen oo jaraa'idka qaar qoreen in dad shabaab u socda oo yurub iyo meelahan ka tegay ay nairobi tagaan kadib hargeysa sii maraan kadib ay muqdisho tagaan war noocaasa ma haysaan waxse ma ka qabateen xagga kalena way ka yimaadaan laakiin waxaan ku sheegayaa annagu inaanu aad iyo aad u xoojinay siina adkeynayno ciidamada yada ilaalinaya nabadgelyada xagga nabad sugidda aad iyo aad baan u xoojinay oo ilaalinaa waan ognahay in mantaqada ay tahay mantaqad halaq mareena oo ay dhibaato badan ay ka timaado laakiin arrintaa waa midaan xoog weyn saaray aadna ugu soo jeedno waana muxuu ahay xilkii iyo waajibka nagala gudbana si wanaagsan baan ugu qabsanay maanta waxaad ka hadashay xarunta Chatham House waxaanad sheegtay mar kale Somaliland madaxtinimadeedu madax banaanideedu inaysan ahayn wax dood ku jira ama laga noqonayo xagga gooni u yaala laakiin haddana waxaad si ka duwan sida looga hadli jiray inta badan madaxda Somaliland uga hadli jirtay aad uga hadashay mandiqada waxyaabaha ka tahay gaar ahaan koonfurta Soomaaliya maxaad u aragtaa xalka mushkiladda Soomaaliya ka aloosan mushkiladda Soomaaliya ka aloosan horta waa ummad dal iyo durukooda noolan jirtay buuro uma dhaxeeya wabiyaal uma dhaxeeya wax kale joojinaya ma jiraan oo muxuu ahay wixii dhibaatada halkaa ka dhacday halkana waa soo gaadhaysaa xagga ka timaadana xaggana waa gaadhaysaa midda ugu horeysa horta marka ugu horeysa xagga madax banaanida Somaliland
iyadaynu taariikhdeeda ka warqabno sida marka hore israa'iil ku yimid waqtiyaasha ka mid ahaa oo aynu doonaynay in dadka ama soomaalidu doonaysay in wixii af soomaaliya ku hadlo dhum isu yimaadaan baa jiray markii waqtigii xorriyadda la qaadanayay lixdanaadkii laga qaadanayay koonfur ahayd talyaaniga muxuu ahay xiriir la lahayd waqooyiga ingiriiska ahaa ethiopia kenya meelo badan faransiisko jabuuti noqotay dee way jira waqti aynu doonaynay in soomaali dhum isu wadato wixii la dhihi jiray shanta soomaaliyeed dareenkaas u bay xambaarsanayd tii israa'iil una xambaarsanayd laakiin waan ogno taariikhdii markii ay inoo geysay dagaalo fara badan oo aynu wadamada jaarka la gallo oo kenya la gallo oo ethiopia la gallo oo cid walba la gallo waa tii arrintii shaqa weli waxaa dhashay heshiis ama dareen ah in cid waliba halkeeda ay ku noolaato oo muxuu ahay xiriir wanaagsan iyo walaalnimo ay ka dhaxayso waa kaasoo jabuuti dee maanta waa madax banaana waa goonidiisa cidina ka hadli mayso muxuu ahay israac iyo muxuu ahay dhibaatay kale ma jirto waa naga imika wa tagnay ethiopia waa taasoo xiriir wanaagsan baa naga wada dhexeeya soomaalida halkaa ku joogtaana waa taa dee dalkoodii iyo dadkoodii jooga dee sidoo kale soomaaliyana way noolaan kartaa way joogtaa dhibaatada in kor qaado caalamkana aanu kala mid noqono sidii loogu soo dambaan lahaa nabadgelyada waxaanu ka qabanno annaguna somalilandna dadkeedii maadaama ay la soo noqotay waqtigii dalka lasoo galay ay iyadoo ay xagga shacbiga ka timid ay dareenkaa la soo noqotay iyana ay sidaa ku guuraysato oo dee sidaa laisku raaco ku wada shaqeeyo waysaan doonaa soomaaliya sida hadda caalamku yaqaano oo macnaha qaramada midoobay sida ugu qoran oo kale oo ay ku jirto somaliland madax inta ah oo dhan marka la fiiriyo mas-uulka uu taageerayaasha badan oo shacabka ugu faraha badan intuu ugu soo baxay codsiya waa adiga ma laga yaabaa inaad mandatekaas isku daydo in aad inta kalena aad wax ka qabato wanaag baan la jecelahay sidaan u sharxay wax ka qabashada mar walba wixii aan ka qaban karayo qaran ahaan iyo dawlad ahaan iyo dad ahaanba diyaar baan u nahay mar walba waan iga maqashay in badan anigoo radioga iyo ka hadlaya b b c iyo kuwa kaleba ka hadlaya oo leh wixii dadkaa wax yeelaya waanu kasoo horjeednaa dhibaato ugeysana waanu kasoo horjeednaa laakiin wixii isu keenaya iyo wixii waxtarkooda iyo midayntooda iyo nabadgelyadooda ka shaqaynaya diyaar baan u nahay inaan muxaa gacan ka siino waana jeclay in dadkii shacbiga dhibaatada laga daayay laakiin markay timaado madax banaanida somaliland taas iyadu waa mid laba taabtaana waa dareen ka yimid xagga shacbiga oo shacbiga goostay ummaddu isku raacday dee waqtigii la ogaaya ay dalka la soo galay madaxweynaha somaliland axmed maxamed silaayo aad iyo aad baad mahadsantahay adiga badan aad baad mahadsantahay